waayay barnaamijka waxaan ku falqeyn doonaa hadalkii ugu dambeeyey saaka ninka la yidhaahdo Donald Trump uu soo qoray ninkii dhammaa ee 48 saac qabsaday ee maanta ay ugu ekeed waqtigii uu qabsaday maray 10 saac kaliya ka dhiman tahay ayuu wuxuu soo qoray qosul maanta iguma harin Iran way usoo jawaabtay jawaabta Iran waa idin wadaa bal ii kaadiya ninkii Soomaali dhexdaas loo maalin ka hor Sooma uusan qabsanin 48 saacadood waliba handadaad uu soo qoray 48 saac haddaa ku furi weysaan marinka Hormuz balaaya idinka raaceyso meelaha korontada ka dhalisaan loo yaqaan power plantiga waa duqeyn doonaa waa tuu yiri mogta Iran u soo jawaabtay ee tiri war waxa haysid soo daaniyo aniga handadaad iyo nala soo horfadhinay aniga NATO manine NATO Europe uu booto ever uga dhigay Trump intuu xilka ku fadhiyay booto ever dadka uga dhigay Afrika u booto Xasan Sheekh iska caaya Xasan Sheekh iska caaya Soomaaliya caaya waa ta aragteen oo Europe caaya ever handadaad uga dhigay handadaad ninka baado wax ku qataa isbaara caadi oo toos oo bi ala marinin ayuu Donald Trump adduunka oo dhan u dhigtay laakiin xaqiiqada marka ka hadalno Iran sheekada dhan ku fahamtay waayay horta 48 saac iyo jawaabtii ha i dambeeyaan aku bilaawo waa kan 3 maalin ka hor maanta waa Isniin Jimcihii waa kan Donald Trump oo soo hor istaagay asagoo leh fiiriya muuqaalkan waa muhiim sheekada dhan ayay muhiim u tahay si ay u fahantaan marka waa kan Donald Trump oo leh madaxda Iran dhan waa dilnay kii soo kacay waa dilnay kii kale waa dilnay cid lala hadlo meesha cid maamusho ma laha wax madax meesha jooga cid lala hadlo xitaa hadaa wada xaajood la gali lahayn asaga kala hadlay waliga qof bini'aadam ba aragtay qof asaga afkiisa iyo dhigiisa iyo asaga asmaqlin mano waa kan marka muuqaalka idin fasaxo asagoo dhahayo madaxda Iran kii soo kacay waa dilnay kii kale waa dilnay meesha marka cid maamusho oo madax ah oo horta lala hadlo oo lala fariisto lala xaajoodo maba joogaanba waaba baabi'ina wixii dhan idinku bilaaw qosolkana halon dambe their leaders are all gone the next set of leaders are all gone and the next set of leaders are mostly gone and now nobody wants to be a leader over there anymore we're having a hard time we want to talk to them and there's nobody to talk to we have nobody to talk to and you know what we like it that way way inta soo baqashay Soomaa muxuu leeyahay cid lala hadlo meesha ma joogto ba cid aaba la hadalnaba oo lala xaajoodo meesha ma joogto asaga afkiis ka yiri haddana isla asagii wallahi dikaro kala adbaarig isla asagii wuxuu leeyahay wada hadal dhoo furmay barna wuxuu leeyahay cid lala hadlo bale waaya muuqaalkaas hadda arkayseen waxa ku xigay ultimatumki uu qabsaday oo 48 saac ahayd okay haddana keen marka qosol haduu bilaaw yahay saaka soo qoray mugta saaka wuxuu soo qoray waxaan ku faraxsanahay yani inaan idin sheego in wada hadal uu bilaawdo u dhaxeeyo ninka la yiraahdo waa anaga oo Mareykan ah iyo cidaas ayada ee Iran ah sidaas awgeed waxaan ku amray in muddo 5 maalin dib loo dhigo duqeyntii iyo waqtigii ay qabsaday waxa ku soo haray Iran markay sheekada maqashay ninka uu soo qoray waxa laga yaabaa Trump asoo mashquul ku jiro waxa inuu soo qoraa laga yaabaa Irantii waa yaaban tahay ya Iran kale ma jirto Iran anaga ahayn oo dado oo kale oo adduunyo kale ku taal ma jirto anaga haday tahay war anaga wada hadal naga ma dhaxay kumana maqal telefoon iska ma qabano wax wada hadal aniga adiga bushta iyo bacda iyo xabada iyo rasaasta iyo qarracda sanaga dhaxayso Iran alle waxa kale Iran hadalka ku dartay horta adii fasaxo wax yar ninka TV-ga maanta ka hadlay Iran از بالا تا پایین نیروهای مسلح رهبری همه ارکان نظام به خصوص مردم طبعا افكار ku hadlaya marka Iran waxay leedahay horta wax wada xaajood ah oo noo furan oo naga dhaxeeyo haba yaraatee ma jirto waxay hadalka ku dareen ninka Trump ah waa biiq fuleynimo uu dib ula booday oo waqtigii 48 saac uu qabsaday oo ka sii dhamaanayso oo gabaabsi uu arkay inuu wax qaadi karin iga soo dhaaya dik TV-ga daldalbay ayaa sidaas maanta leh idin fasax muuqaalkan kale gabar wariye Mareykan ah ayaa saaka markuu Trump wixii soo dhigay haddana Iran soo hadasho Iran ee leedahay allahayka Allah wax Trump anaga telefoon ka qabanay wada hadal noo dhaxay habeertay ma jirto marka Iran tiri gabardhaan wariyada Trump telefoon u dirtay
oo Fox News ka shaqeyso gabadha waxay leedahay hay mudana madaxweyne adiga waxa soo qortay in wada hadal uu Iran idin kala dhaxeeyo Iran waxay leedahay wax wada hadal ah oo Trump nagal dhaxay habaratay ma jirto maxaa arrinkaas uga jawaabaysaa Trump waa la qabtay buyir marka way I asked him what his reaction is to Iranian state television saying that there are no talks, and he said he's not sure what they are referring to because the most recent talks happened, in fact, last night with Steve Witkoff and Jared Kushner and their counterparts. When I asked بين هواس ولقى ببغش وحاليري مدة مدحويني إيران waxay soo qoreen TV-gooda hadlay TV-ga dhan ee Iran qaranka hadlay waxay leeyihiin wax wada hadal naga ma dhaxeeyo Mareykan iyo Trump waxa ka leedahay Trump kulaha waxay ka hadlooyinba ma garanayo aniga waxay ka hadlooyaanba ma garanayo war intaas soo qortay qosol baad igu baarin waxa ii soo haray cidii xuutiinta ahayd oo xalay dhan duco u fadhiyo geelay qasheen cambuulada daangada bunka gaxwada xalwada kaale arag xalay qaadka ag yaalo intaas waxay islahaayeen isniin maalinkan waa dagaalku waa galeen cidii xuuti ahayd xalay waa duceysatay intaasoo neef oo geela la qashay waxay sugayeen dagaalkan ay toos soo galaan ma aqaan inay dib u boodeen iyaga ayaga ma garanayo laakiin Trump wuxuu ku noqday mataqaana Tom and Jerry weligaa wada dadka Tom and Jerry daawada waa bukulaashi iyo idooliga waa bootaalayaal oo isdhibo isdaba ordosaan Trump marka wuxuu ku noqday cidii Tom and Jerry ku noqday mar godkaan u gala mar intuu ka soo baxa mar saaxiibo iskal dhigaa mar cadow iskal dhigaa gabagabadii Trump handadaadu hadda hor wax ku qaatay dhowr jeer Yurub uga qaatay NATO uga qaatay Afrika uga qaatay ninka handadaadaas wax ku qaataa iyo bootadaas Iranse waa kadib haddada marka hadlayo oo Iran ay soo jawaabtay qaacda iyo bushta iyo qucda way socotaa